xilli xalay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub Galmudug oo ka kooban 23 wasiir ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Galmudug. Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka mid ah meelaha shacabka siyaasiyiinta waxgaradka ay sida weyn u soo dhaweeyeen golaha wasiirada cusub ee Galmudug oo ay ka soo muuqdeen mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. Shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in golaha wasiirada cusub ay u muuqdaan kuwa ugu tayada wanaagsan ee Galmudug ay yeelato isla markaasna hamiga laga filayo horumarka Galmudug ay tahay mid sareysa iyagoona eebbo ugu rajeeyay in uu mas'uuliyadda cusub ee la saaray uu u fududeeyo ayna ka soo dhalaalaan shaqada loo igmaday. Arab Yuusuf Xasan oo ku nool caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb kabacdi waxaan meeshaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Qoorqoor oo soo magacaabay golihiisa wasiirada ayadoo si nidaam leh ay ku soo baxeen ayna ka soo dhex muuqdeen markii ugu horeeyay maamul goboleed ay ka dhex muuqato xildhibaano federaal ka tirsan oo ka soo muuqday wasiirada Galmudug. waxaan meeshaas ka rajaynaynaa in wax qabad fiican uu ka soo baxo caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo wax badan fadhiidaheedna ay soo kabsato sida hadda u muuqata ugu jeedno in ay hore u socoto. waxaan leenahay mudane madaxweyne waan kaaga hambalyeeynaa waan kugu soo dhaweynaynaa waan ku garab siinaynaa wasiirada cusubna waan soo dhaweynaynaa waana la shaqay doonaa insha Allah taala. Allah waa u jeedaa nimanka hadda ka dhex muuqda waa niman aad wax tar u leh waa niman wax badan hadda ka hor Galmudug madaxweyne u soo tartama qaarkood. waxaan u jeedaa in horumar la gaarayo maadaama wasiir Galmudug ay soo galeen. waxaan leenahay horaha loo socdo ummaddu ha socoto hal la israaco hal la iscafiyo Galmudugna waxaan rajaynayaa in dekedaheeda iyo howlaheeduna hore ugu furmaan u socdaan. madaxweynahana waa madaxweyne dadka isku soo dhaweeyay iskugu yeeray wax fiican ay ka muuqdaan. waxaan leenahay mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkaba waxaan leenahay aad iyo aad waan soo dhaweynaynaa. waxa kale hawshan aad iyo aad Dhuusamareeb in wax laga qabto kalifay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre asagana waxaan leenahay ra'iisul wasaare waxaad noo qabato waa kaaga mahad celinaynaa. Soomaali weyn meel kasta joogto waa salaamaya salaan ka bacdi waxaan leeyahay Ramadaan Kariim insha Allah Ramadaanka khayrkiisa Allah na soo xijiyo shartiisana Allah naga qabto wixii shar Allah naga qabto shar ma watee wixii shar Allah naga qabto dowladda muslimiin oo dhan waxaan leeyahay insha Allah nabad iyo khayr iyo barwaaqo aan soonka ku dhameysana hadii Ilaahay idmo soonka bacdi ما شاء الله وزيرada dawladda dhexe oo la dhisay aad iyo aadan maaragtay ugu faraxsanahay ma sha Allah wax walba oo nabad loo arko oo dawladdu ay u aragto inay nabad Soomaalinimo ay jirto wax taageersanahay aadan u taageersanahay hadafka dawladdana waa hadaf laga noqdaan ah oo tabagalayo oo Soomaaliya oo dhan u hirgalayo waaye إن شاء الله وحنا لنا هاي عدو مسلمين تعدو الصوماليات ملك استيجوجان بقى الله نجقبته قلمدوق وحي وقد جنتها قول يقع مبحث وقد جنتها هاي إن الصوم مغضان إيش قلمدوق تابق ليان قرن وقاضان رنتي دولة الصوماليين وحيكون بحسان لا هاي دذال فربضان يكون بحسين مركا ما شاء الله ما وواحد قال وليلك